السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبada qiimaha qadarinta iyo qaayaha ilaga mudalo meel walba aad joogtaan waxaynu hawada ka leelahay waqtigu haydii wanaagsanaado soo dhawaada saaxiibayaal waxaa la halkan idin kala wadaagayaa sheekada ninka ugu xaasaska badan dunida sheekada ninkan oo ah mid aad u yaab badan ayaa ah mid hadalhayn badan ka dhalisay baraha bulshada gaar ahaan dunida muslimka ah ninkan ayaa waxa uu guursaday in ka badan 130 dumar ah waxaana la sheegay in caruurtiisa ay kor u dhaafayaan 230 culub haddaba haddii aad xiiseynayso muuqaalada luucale oo kale ah laag ilo saar si la sheer garay oo saaxiibada la wadaag mahad salid محمد بيل أبو بكر والي الشيخ لانجيريان مسلم وحالا لشيغي إلو قورسد أو كلميي الكبد البقولي صدل دمر نيكل وحالا شيغي الدمر كأو كدوي يحنون يدو التبدل حاسس كيسال يهيل كوا إساق حلول أو كدوي. Man can have one wife, only one wife or two wives, he will get problem. Somebody should think twice that casriga maanta la joogo waxa ninkan loo aqoonsan yahay ninka ugu xaasaska badan dunida Muhammad mar wax laga weydiiyay xaasaskiisa faraha badan maadaama diinta islaamku ay rag u baleysay 4 xaas oo kaliya waxa uu ku doodayaa in xaasaska faraha badan ay tahay mid ilaahay ku maneestay dowladda Nigeria ayaa xirtay ninkan marsii horeysay iyaga oo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xuquuqda aadanaha maadaama uu kulmiyay xaasas ka badan 130 waxaana ay dadka u doodayay ama sidoo kale banaanbaxyada u dhigay ninkan ay ahaayeen 130 ka xaas ee uu isagu qabay booliiska dalka Nigeria maray baareen ninkan xaasaskiisa faraha badan la wareystay waxa cadaatay inaysan jirin wax qasab ah oo la xiriira guurkooda balse ay tahay mid ku timid qanacsanaantooda. I've already said earlier on, as a good Muslim, he must obey what Allah has said in the Quran. hablaha uu qaba ninkan mar warbaahilada caalamiga ah ay la hadlayeen waxa ay sheegeen inay ku qalacsan yihiin lilkooda ayaga oo jawaab kulul la siiyay dadka ku tilmaamay inay yihiin adoomo. As you can see us, look at my younger ones. Do you look like a slave? My father is a real Muslim. You know the front and the back of Quran, so he can tell the whole world about the God and the Prophet. So what are they saying that he's not a real Muslim? It's them that they are not Muslim. He's not. balse waxa ay sheegeen inaysan lahayn adoomo guurkooduna uu yahay mid ayagu ay ku qalacsan yihiin. Now he had 10 women in a room as wives, 15 women in a room as wives. Is that right? We will believe that he's not a Muslim because then we also disown him as a Muslim. culimo fara badan oo ku nool dunida muslimka ah ayaana ku tilmaamay ninkan nin aan muslim ahayn maadaama uu ka talaabsaday xadka sharciga ah ee loo baneeyay balse isaga ayaa ku doodaya in tale ay tahay mid uu alla ku maneestay oo uu ragga kale kaga duwan yahay. xaasaskayga faraha badan waa loo cadaalad falaa xitaa haddii aan dhaho iska taga ma tagayaan taasina waxay ku cadeynaysaa inay tahay wax alle igu maneestay ayuu yiri ninkan oo wareysi siilayay telefishinka Al Jazeera ka hor inta uusan geeriyoon. alle qofkii uu doono waxa uu siiyaa awood qaas ah qofkii awooddaasi lehla kala soo bixi karana haddii uu guursadaa waxba kuma jabla anigu sameehi qof dumarka raadiya oo ayaga ayaa lugahooda igu soo raadiya waa la hadiyad xag alle iiga timid ayuu hadalkiisa sii raaciyay. si kasta oo aragtidan ay likal qaas ugu tahay oo diinta islaamkuna ay si weyn uga hormaaleyso haddana waa wax isagu uu had iyo goorba daliil uga dhigto
balse si kastoo isagu loogu jeediyey inuu faro xaasaskiisaan faraha badan si uu isagoo xabsiga looga sii daayo waa uu diiday arrinkaasi. waxaa la xusid mudan in Lincoln uu geeriyooday 4 sano ka hor isaga oo la sheegay inuu u geeriyooday xanuun aanan la ogeyn, balse culimmada sayniska ayaa ku tilmaamay geeridiisan inay sabab u tahay xaasaska faraha badan ee uu soo guursaday. guurka ka badan 4 dumar ah waxa uu jiri jiray qarniyadii hore, balse waxaa loo sababeyn jiray arrimo ay ka mid tahay in dadkii hore ay aad u jeclaan jireen inay helaan ama ay sidoo kale dhalaan rag aad u fara badan oo difaaca. balse marka ay dadku fahmeen diinta islaamku oo ay diinta soo gaartay waa la xadiday guurka faraha badan oo qofka waxaa loo baleeyay ugu badlaan in uu guursado 4 xaas. weliba waxay wanaagsan tahay oo qofku u fiican tahay sida quraanka uu tilmaamayo in qofka uu hal xaas guursado haddii uusan u cadaalad fali karin 4 xaas. balse waxaa ilaha caalamka aad u soo wada jiitay oo aad uga yaabsaday Maxamed Beel Abubakar oo ahaa ninkii Nigerianka muslimka ahaa ee kulmiyey guurka il ka badan 130 xaas. haddaba haddii aad ka hesho muuqaalkan oo uu ku xiiso geliyo laag saar si la sheergaray si saaxiibo badan uu u gaaro muuqaalka. mahadsanid.